saalo socotaba saaka aroortii hore ayaa nimankii nabaddiidka al-shabaab waxay soo weerareen magaalada Baydhabo waxay ku soo bilaabeen qaraxyo kadibna gacan ka hadal ayaa bilowday dagaal aad u qaraar dhacay marka nimankii saad ogtihiin baryahanba iyo sanadahan la soo dhaafay 20 sano ku dhawaadba waxay ka wadeen dalka qalalaas aan daro iyo dhibaato iyo foodo iyo ummadda Soomaaliyeed in oo dhibaato loo geysto marka nimankii saaka way ku jabeen dagaalkii mana guuleysanin oo ma karo wallahu khayr maakirin magarta iyo dhibka ay la dabacsanayeen shacabka Baydhabo joogo iyo maamulka Baydhabo ka tirsanaa ay ku soo gudubtay marka insha Allah taala waxaan leeyahay inta dhimanna ay iska dhamaan doonaan magaaladana gacan buuxda waxa si toos ugu hayo ciidanka Soomaaliyeed ciidamadii birmadka ah oo daraawiishka Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Koonfur Galbeed oo meesha ka shaqeynaysa oo hadda gacanta ku hayso khasaare waa jiraan wali si rasmi ah loo soo gudbinin ciidamada amniga ayaa gacanta ku haya waa la sheegi doonaa tirada saxda ah ee dhimatay iyo wixii dhaawacmay iyo maxaabiis iyo runtii iyo gaadi dagaal meesha waa lagu qabtay oo watay nimankii nabadiidka ahaa marka arinta si toos ah loo soo bandhigay ciidamada amniga Koonfur Galbeed gacanta ku haya waa iska sheegay sabab aan baa ku leeyahay waxa uu dhigay sabab badan oo ku leeyahay shacab ahayna marka meesha soo waxa lagu cadeynayaa beebaha ee 2023 oo ciidankii gogor lahaa meesha lagu qaatay waxa lagu cadeynayaa nimanka oo dhaawac ah iyo nimanka maxaabiista la qabtay dadka waa la yaqaan dadku way yaqaaniin dadka waa la soo jigarnaa dadka oo isku deegaan ah waaye marka dadka shabaabka iyo dadka shabaabka ahna dadka kala yaqaaniin xogtana waa la soo gudbin doonaa ciidamada amniga Koonfur Galbeed gacanta ku hayso iga soo bandhig doona wixii faahfaahin ah